Bismillah. Een, Muhiimadda iyo sababta ka dambeysay iyo sababta aan rabay inaan qofka koorskan u qabto aan marka hore ka hormarayna hadduu ilaah idmo insha allah kadibna xiisaddeena sii bilaabaneynaa. Horta sidaa la wada socotaan qof walba oo anaga naga mid ah oo aniga ugu horeeyo oo idinka ku xigtiin oo qof walba wuxuu jecel yahay okay maasha allah way maqashin waa mahadsantihin. Qof walba wuxuu rabaa marka inuu helo waxa la dhaho financial freedom. Financial freedomna waxaa la dhahaa qofka asiguna qof u shaqaynayn oo shaqaalana uusan ahayn inuu noloshiisa uu dabero uu reerkiisana hadduu reer leeyahay reerkiisa dabero noloshiisa si walba oo noloshiisa ku quruxsan karo inuu ku quruxsado asigoon shaqaalanimo aan noqonayn. Horta suuqan sidaa labada socotaan waa suuqa keliya ee ku ogolaanayo suuqa keliya ee ku ogolaanaya adigoona qof u shaqaynayn inaad shaqaysan kartid oo adiga noloshaada aa maamuleysid oo adiga noloshaada aa u tahay macallin adiga noloshaada u tahay qaab shaqaale adiga shaqaale isku tahay adigii maamulkii isku tahay waxaas oo idil adaa isku noqonaya marka waxaas oo idil waxaa u samaynaysaa si aad rabtid inaad hadafkaaga ku gaartid. Inteena badan hadafyada aan wada leenahay way kala duwan yihiin qof walba hadaf gooni uu leeyahay. Qof walba haddii maanta la weydiiyo lacag cadadkaas inta flag haddii aa heshid maxaa ku qorshaysan inaad ku samaysid hadii la dhaho qof wuxuu ku jawaabaa si gooni uu ku jawaabaa wuxuu leeyahay qof aniga qaabkaas ku sameynaa qof wuxuu leeyahay aniga ku guursanaa qof wuxuu ku leeyahay aniga waalidkayga wax ugu qabanaa qof wuxuu ku leeyahay ganacsiyo kala kasii samaysanaa oo waxaa rabaa inaan businessman noqdo. Qof walba wuxuu leeyahay mataxaniyo kala duwan ilaah waxaa ka rajeynaa inuu caawa bil ramadaanna waa lagu jiraa inuu noo aqbalo qof walba reerooyinkiisa laakiin hal mid ogaada halka mid ogaanaysaana waxay tahay qof walba oo maanta hadaf leh inaad hadafkaaga gaartid waxaa kaa xigto buuro badana kaa xigo oo dhibaatooyin ah oo caqabado ah oo waxyaabo badan oo serious kaa xigo si waxaasoo idil ah u gudub marka waxaa rabaa waxaan adiga aad baranaysid haddii ay kaa ahayn haddii ay kaa tahay iska baro waxa waaye horta meel fiican ma gaarsiinaysid laakiin waxa markii waxaa jiro desireka waxa qof inuu waxa ka go-an yahay oo rabitaan xoogan u qabo waxaan inuu barto oo interest gareynayo oo habeen iyo maalin ku fikiraayo oo marka qof walba oo xirfadan barto wuxuu awood u yeelan doonaa inuu ka baxo waxa loo yaqaano shaqaalinimada. Walaal video waa duuba waa mahadsan tahay Mr. Cabdiraxmaan waa duubaya videoga maasha allah. Marka qof walba uu rabo marka inuu ka baxo shaqaalinimada waa wadada keliya ee ku ogolaanaysa inaad shaqaalinimada ka baxdid. Haddii wax yar oo aniga igu saabsan idinkagala hadlo aniga horta muddo ka hor suuq horta dhowr waa ku jiraa muddo fiicanna waa baranayay muddona waa ka shaqaysanayay markaa suuqan bilaabayna ujeedka u bilaabay ma ahayn waxaan bal forex aad sheegayaay dadka lacag ka sameeyaan lacag ka sameeyo fikir noocaas oo kale iguma jirin. Fikirka koowaad igu jiray oo nolosheeda markaa suuqan baranayay u baranayay waxay ahayd sidee macquul ku noqonaysa anaana qof u shaqaynayn inaad shaqaysto oo qof xor aan noqdo oo maanta nolosheeda wixii meeshaas shaqaalanimada iga soo geli jiray wax ka qurux badan inta iga soo galaan aan nolosheeda ku daberaa oo aan go-aan noocaas markii hore oo ahaa qaatay isla markaa go-aankaas qaatay shaqooyin aan ka shaqaynaya jireen muddadii aan baranayay marka waxaa sameynayay waxaa shaqaynayay subaxii oo kale hal sac baraa shaqada galayay waxaa ka baxaya ilaa galabkii 12 sac bar maqribkii kusoo gaaraya goobta shaqo marka intaas ay soo dhamaato xaafadeeda imaado shayga tukado then computerkayga daaranay course-kayga suuqa ku baranay waxaa sameyn jiray ilaa habeenkii 8 saac ilaa 9 saac ilaa 7 saac bar jadwal ay degsanay intaas ina complete gareeyo xilliga igu qaadataba waa dhameyn jiray kadib suuqina anigoo sidii hurdo la'aan xal u ahaa shaqadeeda ku aadi jiray alxamdulillah ugu dambeyn shaqadii waa ka soo tagay waxaan noqday qofka iskiis u shaqaysto financial freedom aan helay marka fikirka ugu weyn ugu soo dhashay wuxuu yahay si qof walba oo walaalkaa kula mid ah oo niyadiisa ay ku jirto inuu wax adiga ka dhex guuxayo kale asi ka dhex guuxayo uu jiro raadi hal wada ku caawin kartid oo asina wadadiisa si ku gaari karo. Marka ujeedka koowaad aan u sameeyay course-ka caawa aan qabanayna waxaa rajeynaa inaan bishan Ramadaan kusoo gabagabeeyo intii aan suuqaas ka aqaano liban ahaan isla markaasna waxaa rajeynaa qof walba anaga naga mid ah inuu noqdo qof xor oo suuqaas ka shaqaysto. Suuqan horta haddii fikir yar idinka siiyana waa suuqa ugu weyn ee la dhaho waxa la dhaho financial marka laga sameeyay lacag ahaan maalintii la isdhex mariyo waa suuqa ugu weyn ee caalamka maalinkii waxaa la isdhex mariyaa 5.3 trilyan ilaa 5.6 trilyan lacag ah
markii dhaqaalaha Afrika la fiiriyo waa sanadkii dhaqaalaha Afrika soo galo ama wixii ganacsi la dhahayo marka la fiiriyo lacag kasta kan soo marto hataa ayada kala barkeeda xitaa Afrika ma soo marto dhaqaale ahaan marka waxaa ogaanaysaa in ay tahay meel dhaqaale zaa'id qof walba uu ka samayn karo waxaa arkaysaa qaarkeen in maalinkii ay 50,000 oo samaynayaan qaarkeen inay 10,000 oo doolar saacado ka shaqaynayaan ma jirto meel kale aad ka shaqayn karto 10,000 oo doolar saacado hadduu nasiibkaaga kuu ogolaanayo laakiin waxaasoo idil waxaa ku gaari kartaa inaa heshid waxa la dhaho cilmigii suuqan waxaas uga soo saari lahayd dad badan waxaa jira oo suuqan hore usoo galay markay muddo ku jireen marka ulajeedkooda markooda hore kusoo galayay waxay ahaayeen lacag ka samee suuqan lacag ka samey fikirkaaga haddii ugu horeyba haddii uu yahay almost waxaa khasaare ku jirtaa waxaa khasaare ugu jirtaa waxaan waxay leeyihin waxa la dhaho waday leeyihiin wado la maro oo la qaado oo qofkii rabo inuu wax tusaale oo kale hadda maanta inaad business abuurtid marka aragtid kasoo qaad markaad dukaan inaad furto aragtid dukaankii dan waxaad samaynaysaa inaad asiga dhistid qurxisid kadib alaabtii aa keentid kadib booraa u samaysid xaysiis u samaysid dan arag macaamiisha ay ku imaadaan kadib muddo kadib waxaa laga yaaba dukaankaas inuu dukaamo kala dhalo laakiin ma dhacee maanta dukaanka inaad ku fikirtid beri markaa furtin dadka dhan intay ku imaadaan alaabta maanta keensat in lagaa wada gato ma dhaceyso marka qofkaas oo ku fikiraya inuu caawa inta suuqan soo galo oo in week in month in 2 months oo lacag fiican ka sameeyo uu rabo mar walba ma u suurtagelayso waxay ugu suurtagelayn marka lagu leeyahay dukaanka marka inaad dhisatid oo qurxisatid waxay u taagan tahay inaad adiga suuqan soo geshid dan beratid horta baro maxaa waxaan suuqan soo u shaqeeyaa see lacag loogu sameeyaa qaabkee lacagtaada adoo suuqan waa suuqa keliya hal maalin ku ceerteyn karo lacagtaada idil hal maalin lagu kaalunsan karaa haddii aad aqoon u lahayn hal maalin waxaa arkaysaa dad badan waxaa arkaysaa suuqay soo galayaan hal bil ama 2 isbuuc ama 3 isbuuc wuxuu maqlaa suuqan oo lahaa qof saaxiibkiisa wuxuu leeyahay isagu suuqan intee la taabtaa sida whatsappkii kale waa la tusaa qofkii wuxuu leeyahay beri lacag ku soo aqoon real oo samaysan war walaalow waxaan baro may wuxuu ku leeyahay waxaan waa inta ka fahansana iga filan laba beri kadib waxaa maqlaysaa soo waca wuxuu leeyahay walaal akoonka ay taas marka waxaa keenayso qofkii oo lahayn jadwal oo ku socdo haddana fikir kale waxaa ku jira oo ah hal maalin ku taajir suuqan farkiis haddii aad ku fikiraysid hal habeen inaad 1 milyan oo doolar ku samaysid waxa waaye bilaaw hadda jirta weli ma lugta maala la soo galay haddii hore ula jirtana fikirkaas inaad iska saartid habboon sababtoo ah waxaa saas u leeyahay ma jirto wax hal habeen wax walba ku koobi kartid waxaan serious ku noqon 1 milyan oo doolar inaad samaysid kala markaa waxaa roo jadwal inaad samaysid oo dhahay ani halkaas milyan jadwalkaana ku gaari karaa tusaale inaad suuqa baratid markaa baratid aqoon fiican u yeelatid meel fiican ka gaartid suuqa lacag la soo gal lacag markaa la soo geshid isla markaas waxaad aaminsanaysaa meesh suuqan qaabkee jadwal aad degsan maalinkii suuqan meeqaa ka rabaa intaasaa ka rabaa maalinkii intaad ka heshid jadwalkaaga samayso ka bax maalinkii markaa intaas ka heshid haddana saas waxaa tartiiba ku gaariya laakiin haddii aad aada caawa keliya rabaa inaa lacag isla ku sameeyaa adiga ku khasaaraysid maahe midda kale haddii adiga lacagtaada boqolkaaga doolar iyo 2 boqol oo doolar suuqan wax ma ka goyso hal xabo ay ka tarayso mala waxna ma kusoo kordhinayso laakiin adiga intaada yar ah ama walaalka ama walaasha ama adiga ahaan oo qeyd suuqa la soo inaad iska lus gareena kugu waanin ama kugu horeyso waxaan ku lus gareenin koow wax walba waxay leeyihiin waxa la dhaho wadada qaad oo ah inaad suuqan baratid muhiimada kuwaad anaa hadda idin sheego suuqaas dad waxaa arkaysaa badan wuxuu ku leeyahay lacag raba inaad wax kale ma rabo isla markaas wuxuu sameynaa qofkii suuqiyo maqlaa signaalo la qaataa waa maqasheen oo maleena signaalo qofka qaadana signaalada qofka siina adiga suuqan maybe inuu cilmi u leeyahay inuu cilmi u lahayn qofka signaalku iska soo bixina marka qofka signal iska soo bixiyo asig kama fikiraya qofka kullu isgarooba qofka waxa laga yaabaa adigii signalka oo ku soo diray asigii soo diray inuu lod yar ku galo lacag yariis sentiyaal 0.01 ku galo kale kuma sentiina suuqa ku galo adigii signalka lagu soo diray oo suuqa meesha u socdo meesha sax in saxanta in kala aad ka fikirin waxa sameynaysaa inaad 10 doolar kale ku gasho wax yar kadib waxa maqlaysaa akoonkaaga asiga hada u shifto wuxuu ku leeyahay labo maxaa u gasho su'aasha wax ugu horeeyo ku sameynaya adiga wuxuu ku mucaarada wuxuu ku leeyahay maxaa ku sameeyay xariskiga uu fikiri weys marka waxa la rabaa adiga rabana inaad suuqa wax ka samaysid inaad jadwal lahayd aniga signal qof inuu qaato kulama kale qof walba oo suuqa cusub marka arko oo dhahay suuqana rabaa inaad ka shaqeysto ee see uu shaqeysan karaa wax ugu horeeyo qofka marka hore aa u sheego waxay tahay niyo suuqan hadii aad almost baro waqti geli waxa waqti gelisid waxa waaye meel fiican bari ku gaaraya inta kale xirfada marka dhageyso qofkan signalka maanta ku qaadanayo qofka signalka qaadanaya bari haduu waayo suuqaas banaanku ku yahay
maalinkaas haduusa wax soo dirin qofka signalka bixinaya haduusa maalinkaas wax soo dirin qofkaas signalka maalinkaas suuqa ku jiro adigii laakiin yaqaano suuqa maalin walba waa dhex joogaysaa suuqaas waa arkaysaa fursadaha saas kaga socdo waa ka qabsanaysaa waa ka bixaysaa saacado yaraa kaga qabsanay maalina guriga fadhinay kadib waa waxay waa isku qaatoosan laakiin haddii fikirkaaga markii hore ta signal iska qaado adoon wax baran waqtin isgelinin waxa waa almost loo soo ku jirtaa hadalkan halkaas waxa ugu beenaa hadalkii yaraa iyo sababta ka dambeysay inaad suuqan kooraskiisa aad bilaawno iyo kooraskan qof walba si ugu faa'iideysan karo marka waxaa samayn doonaa kooraskan qaybo badan oo ka qaadi doona dad badan waxaa sameeyey saaka codaa soo duubay markaa casharka diyaarinaya waxaa rabay in dadku meel fiican inay wada joogaan in kale inaan hogdo marka dad badan oo ila soo hadleen waxay igu dhaheen hadda badankiin qaar badan inay taraawixii wax ku maqan yihiin laakiin 118 qof waxaa u diray linkiga zoomka 118 qof waa u diray marka waxaa filan ayagana soo galaan marka waxa uga codku wuxuu u batay inay dadka badan yihiin badankooda ay yihiin dad suuqa ku cusub fikir fiican ka haysan dad badan oo signaal iska qaato suuqa war ka haynin qaabka u shaqeeyay maxaa karona maxaa ka beenay marka waxa go'aan ku gaaray maadaama bishan rab inaan kusoo gabagabeeyo inaan caawa ka dhigo wax la dhaho introduction suuqa muxuu yahay soo u shaqeeyaa see lacag looga qabtaa waxyaabaha basic terminology-ga isticmaali doon inta koorsiga noo socdo erebixintiisa waxaasoo idin lahayd waxaa noo soo diyaariyey caawa powerpoint-ga noogu soo diyaariyey waxaa rajeynaa qof walba buuggiisa noodkiisa inuu diyaarsan yahay waxaa rabaa muddo kadib dee qofka marka ayaan la sii socdo wixii caawa aad barano hordhac waxay u yihiin waxyaabaha soo socdo tusaale kale caawa ereyo badanaa ku baran doonaa meeshaan ereygaas markaa loo beri markii ereygay oo shaqeynaya aragtid inaadan dhihin dib ereygaas muxuu ahay marka taas waxay kaa caawinaysaa inaad caawa notebookaaga diyaarsatid wixii kugu cusub aad baratid wixii aad taqaanina waa taqaanaa wixii aad aqoonina inaad ka samaysid insha allah marka presentationkeena bilaabanaynaa okay kan waa saa ujeediin magacii intiina badanaa taqaaniin liibaan nuuraa la dhahaa suuqan dhowr qaaba loogu shaqaystaa jiro iyo istaraatiijiyado badan la isticmaalaa jiro ani ahaan waxaa isticmaalaa istaraatiijiyadeeda waxaa la structure market and price action inaa suuqu qaaban oo qalalan aan ku shaqaysanaa iyo partnerska iyo waxyaabaha noo go'aaminaya suuq waxaa jiro siyaabo badan kala duwan dad waxaa jiro indicator waxa la isticmaalo indicatorskaas oo kale waxay ku qabanayaan qofka wuxuu sameynaya wuxuu leeyahay indicator hebel wuxuu tusayaa meesha suuqa ka geli lahaa marka almost waxaa ilaahay ugu mahad celinaa inaan dadka ka mid noqonin xataa marka suuqa soo gelayay waddo saxana markii hore helay isla markiiba waddadii ugu habbooneyd suuqan aslaaya wax fiican kaga samayn karta waa helay oo waxa waaye waddadan structure marketka price action structure market price actionka waa arki doonaa qaabka u shaqeeyaan maxay yihiin waxa dhan waa istaraatiijiyadda aan rabo oo aniga aan ku shaqeysto idinkana aan rabo inaan idin faa'iideeyo marka waxaa jirto dad badan oo indicators iyo support and resistance iyo waxyaabo noocaas oo kale isticmaalo haddii idinku jiro qof fikirkaas oo kale qabo inuu rabo oo qaabkaas inuu ku shaqeysto waxaa ka waaninaya inuu iska dhaafo maadaama weydii dadka intooda badan dad badan oo hadda waxaa laga yaabaa caawa zoomkan nugula jiro hore isu isticmaali jiray yar waxaa jiro saaxiib nahanay oo masar cumar in la dhahaa u malaynaa wuxuu ka mid ahaa tiimkii hore u isticmaali jiray support and resistance indicatorada caqabado badan oo kala kulmay ugu dambeyntiina markii dambena wuxuu sameeyey ugu dambeyntiina markii aan u sheegay in qaabkan waxa u shaqeynayna istaraatiijiyadeedii xoogaa fahansiiyey alxamdulilah maanta waxaa wax fiican oo suuqan ka qabsaday oo hadda waxa waaye dadka oo maasha allah si fiican suuqan ugu shaqeysto ka mid yahay oo lacago fiican ka samaysto okay marka waxaa sameynaynaa marka waxaan ka waaninaa inaad dadkaas ka mid noqonin oo qaabkan hadda istaraatiijiyadan ugu fiican ugu habboon dadka intooda badan ay maanta ku shaqaystaan aan rabaa inaan la wadaago waddadan inaan wada qaadno safarkan inuu noqdo safar insha allah qof walbo anaga naga mid oo kor ku noqdo shaqaalnimana uga baxo noloshiisana uu ku dabero okay waa maxay forex marka waxaa maqanay forex al jiro forexan waaye ka baxaa forexka waxa waaye waa suuq sarifeed oo lacagaha suuqa sarifka lacagaha qalaad suuqa sarifka lacagaha qalaad markii lagu dhahayo waa suuq baahsan oo caalami ah oo suuqaas wuxuu go'aamiyaa sicirka lacagaha waddan walba lacagta uu joogo suuqa go'aamiye waa
suuqani wuxuu leeyahay dhinacyo badan oo leeyahay oo ah tusaale kale suuqan forex lagu sheegaa wuxuu yahay islaakin akhri mara marka suuqa tusaale kale forex waxa waa dadkii waagii hore waxaa jiri jiray markii intaas lacag soo bixin ka hor dadku waxay samayn jireen waxa la dhaho lacagaa la isku kala adeegyada iyo badeecadaha qofka uu haysto waa la isku kala bedelan jiray tusaale sidee la isku kala bedelan jiray qofkii xoolo haysto iyo qofkii beeraley ah oo badar haysto oo kale wuu isku bedelan jiray ugu dambeyn waa laga soo baxay casrigaas casri waxaa la gaaray dahabkii iyo shilmaadkii la isticmaali jiray markii dambe waxaa la bilaabay in dadkii ay ku kala bedeshtaan wixii dahabkii markii wuxuu noqotay ugu dambeyn in culays noqdo oo qof walba dahab inuu gacantiisa ku wadwadinin oo waxaa la dhahay dahab marka ma socon karta waxaa samaysanaynaa waddan walba dahabkuu haysto cadad lamid xaanshiye ha samaysto xaanshiyihii dadkii dowladihii samaysteen tusaale kale dowladdan qofkii wuu safraa wuxuu tagayaa maraykanka oo kale ingiriisku degnaa warqaduu dhiiba warqadaas waxay caddaynaysaa dahabka hadhow dahabkaas markii maraykanka la tago qofkaas ganacsadahaas oo alaabta soo gatay hadhow waddankan imaana dahabkii u dhowrsana qofkan lacag kaga iibsaday sidii ugu dambeyn dahabkii markii sidii loo waday waxaa badatay dahabkii dhan adduunka yaalay 3 meelood 2 meel iyo bar wuxuu maray dhanka maraykanka asaa waxa waaye dahabkii ugu badnaa adduunka isla markaas la wareegay wuxuu go'aan ku gaaray wuxuu dhahay maadaama dahabka adduunka aniga gacanta ku hayo lacagteeda hala isticmaalo lacagteeda waxay noqon doontaa base lacagteeda iyo dahabka isku xiraa intaasoo lacagteeda ka mid ah dahabkan intaas ugu dhigmataa muddo markii lacagtiisii iyo dahabkii la isticmaalaya wuxuu ogaaday in lacagtii dahabkii dhammaa oo adduunka soo aadi rabo isla markaas fikir wuxuu sameeyey uu dhahayo madaxweyne ka mid madaxweynayaasha maraykanka oo ahay go'aan waxaa loo gaaray in la sameeyo in la kala furo dahabkii iyo lacagtii oo la dhaho lacagtan iskeeda u shaqaynaysaa dahabkan iskiisa u shaqaynaa ugu dambeyn si usoo socotay lacagihii maanta marka suuqan lagu sheegayo waa waxa la dhaho digital currency أول waxay kasoo bilaabatay in alaab gacmo lagu kala bedeshto waxa la dhaho qofka alaabta haysto alaabta kale qofka ku bedeshto si usoo socotay lacagaa la keenay dahabaa la keenay waa laga soo tagay maanta suuqa marka madaxu uu taagan yahay waxa waaye waxa la dhaho digital currency hadda waxaa arkaysaa qof $100,000 $1 milyan oo haystaa jibkiis kuma wato masarkaar yaroo wataa masarkaarkaasay ku jirtaa marka digitalka lagu sheegayo suuqan wuxuu ku shaqeeya waxa waaye waxa la dhaho digital suuqa farkiska iyo fikirkiisa iyo qaabka u shaqeeya waa intaas suuqan wuxuu shaqeeyaa 24 saac 5 beri uu shaqeeyaa 5 beri waxa waaye waa axad isniintii talaado arbaco khamiis jimco wuxuu furmayaa habeenkii isniinta oo soo galayso 6 saac habeenimo markii la gaaro 6 saac 40 suuqa furmaa wuxuu xirmaa habeenkii jimcaha oo sabtiga soo galayso 6 saac oo xirmaa habeenimo ilaa 6 saac iska dhaa oo xirmaa suuqan lacagaha la isdhex marsado maalinkii sida hore in kugu sheegan waxa waaye 10.3 trilyan maalinkii oo lacagaha la isdhaafsado suuqan اوكي تاريخ فوركس يقرا النقطه هيك هي ولا هي marka sidaan la wada socono xilidii hore intaan waxa waqti hadda ka soo hadlaay suuqan marka wuxuu la mid yahay wuxuu ku shaqeeyaa digitalka lacaga digitalka lagu sheegay waxa waa lambaro u taagan lacagaha oo dadka dawladaha ay kala haystaan lambaradaas marka waxa taa wax adiga oo kala sarifanaysa okay adiga ahaan aniga liibaan ahaan idinka ahaan maxaa qofka marka uu rabo suuqan forex inuu barto uu ka shaqeysto uu rabo maxaa looga baahan yahay waxyaabaha looga baahan yahay waxa kamid ah waxa la dhaho smartphone qofka inuu haysto mobile ere mobile meesha ku soo qoray marka mobile waxa ugu soo dhacay inuu niclaha ta ku jiro marka smartphoneska waxa waa telefoon walba oo aqbalayo internet waxa loo yaqaan smartphone inuu qofka haysto smartphone maxay ka caawin doontaa smartphone waxay ka caawin doontaa qofka wuxuu sameysanayaa application jiro oo suuqa soo degsanayo oo mobilka dhow trade-ka shaqado idil waxay ka dhici doontaa mobilka ay ka dhici doontaa interest for application la jiro interest 5 asoo labadaasba waxay sameynayaan suuqa ka galaysa laakiin waxa ku xigo kale oo u baahan tahay si suuqan ugu shaqeyso computer inaa haysatid computerka marka muxuu iga caawinayay sababta ugu baahanahay maxay tahay computerka waxa ugu baahanaysaa suuqa inaa ku falanqeysatid inaa ku ogaato suuqa waxyaabo badan waxa jiro saameyn ku leh oo la dhaho news waxa la jiro tusaale kale hadii maanta dollarka Mareykanka oo madaxweynaha Donald Trump uu hadlo saameyn wuxuu ku yeelanaysaa Donald Trump lacagtaas wadankaas oo dollarkaas tusaale kale Ingiriiska hadii maanta samaha wax ka dhacaan oo kale lacagta Ingiriiska saameyn ku yeelanaysaa marka waxyaabahaas oo idil meesha ka ogaan lahayd mobilka inkastoo ka ogaa kartid laakiin computerka waxa waa meesha kaliya wax ka taxliilaysan lahayd si aad suuqan ugu shaqeysatid waxa u baahan tahay smartphone waxa u baahan tahay computer waxa soo sadeexayna waa internet
waxaan aan wax kula xiriireen oo idinka hadda caawa iskula xiriireen oo cashirkan idinka guriyeen joogtiin oo qaadanaysaan waxa waaye internetkaas noo ogolaanaya saddexdaas wax aa u baahanto si aad suuqaas ugu shaqaysatid okay haddii saddexdaas wax aa helo oo suuqii aa bartay maxaa kaloo ligaga baahan yahay sidoo kale waxaa jiro waxyaabo si aa account real u samaysatid aa lacag ugu shubatid waxaa u baahan tahay waxa la dhaho passport inaa haysatid ama national ID ama governmental document waxay kuu noqdaan intaas hadda inaa haysatid intaas maxay ku ogolaanaysaa intaas waxay ku ogolaanaysaa horta kow inaa ku samaysatid bangigii xogtii zoomka waxaa samaynaynaa 10 daqiiqa ka dhiman wuu go'i doonaa 45 daqiiqa kusoo xiray waa kusoo laaban doonaa mila socotaan hal qof aa ii jawaaba insha allah okay zoomka marka 10 daqiiqa ka dhiman 10kaas daqiiqo kadib waxaa samaynaynaa kusoo wada laabanayna isla linkigii hore kusoo wada laabanayna si aa usii dhammaystiran okay waa mahadsantihiin kulligood okay inshallah haye walaal qofka marka muxuu u baahan yahay inuu haysto passport national ID card intaas waxay kuu ogolaanaysaa inaad kow ku samaysatid bangigii oo kusii lahaa mastercardkii markii bangigii ku samaysatid isla markaas waxaa jiri doona waxa la dhaho brokerka muxuu yahay brokerka waa waxa keliya ee ku ogolaanaya suuqan inaad geshid adigan axmed gabadhaanan aamine suuqaas ma geli karaan without broker sababtoo ah qofkan suuqan sida hore in kugu sheego waxaa laga sameeyaa maalintii saddex mariya 5.3 trilyan tusaale boqolkaaga door iyo kunkaaga door suuqaas muxuu ka yahay wax ma ka taagana marka waxaa jira brokerada waa institutiono loo ogolaaday suuqa in shahaado laga siiyo la aaminsan yahay isla markaasna suuqii ayaga ka shaqaysan karo adigii marka waxaa samaynaysaa ayagiyaa ku xirmee ayaga akoonka sii dhex samaysane lacagtaada ku shubanaysaa mar allaala markaa lacagtaada ku shubatid ayaga wuxuu ku ogolaanaya marka application koodka ku galayd internet koodka kusoo dirayaan lacagtaadii markaa suuqa si live ula dhex jirtaa marka ayaga brokerkaas aa u isticmaashid wuxuu kaaga baahan yahay waxa loo yaqaan passport inaa haysatid ama national ID cardka ama governmental document mar intaas waxyaabo basic u yihiin suuqan inaa ka sii mid noqoto haddaa aragtid ama inaa ka shaqaysto aragtid intaas adigoo haysan xoogaa culayska kaaga imaanaya suuqan in lacag haysto inta badan waxaa jiro bangiyo badan oo waddanka ka shaqeeyo oo dadka ay ku hungoobaan tusaale kale mastercardkan oo kale documenti fayga ku samaysanaa almost brokerkii la xiriira documenti fayga hadhow waxaa dhici doonto lacagtaadii aa suuqaas ka soo shaqaysatay caqabad ay kugu noqon doonta inaa heshid waxay kala jeedaa inaad la soo baxday sababta adiga suuqan u baratay ugu shaqaysatay habeen maalin ugu dhafraysay tireedyada u furaysay maxay ahayd in lacagtaadii aa suuqaas ka shaqaysay inaad suuqa kusoo dhacdo oo bangiga kugu soo dhacdo marka waxaa jira bangiyo badan aysan aqbalayn waxaa loo yaqaan forex bangiyo aan inta badan oo dadka aan ku recommend gareey waxa waaye bangigan loo yaqaan premier bangi brokero badan way jiraan any broker suuqan waa isticmaali kartaa waxa keliya u baahan tahay marka maxay tahay marka brokerka aad furatid brokerka arti dooro aan dhowr broker isticmaalo oo waxaa kamid ah FX Brands waa isticmaalaa waa brokerka Soomaalida ugu badan intooda badan ay isticmaalaan broker kale waxaa isticmaala FX TM la dhaho asina Ingiriisku uu degan yahay broker weyn waaye XM waa isticmaalaa marka brokerada idil almost ku support gareynaya mar alla markaa samaysid xogtaada ka samaysid passportkaaga waxaad u dirtid waxaa dhihi doonta email qaarkood email loo diraa qaarkoodna waxaa jira waxyaabo loo oo caadi toos ugu helayso waxaa leedahay qof muslina ahay islamic account la rabaa islamic account marka waxyaabaha ku sameeyaan maxaa kamid ah waxa culimada nagu haysto waxaa kamid swap waxa la jiro oo ah swap waxa waaye tusaale kale trade-kan caawada ku furnaado oo la seexatid lacagtaada brokerka uu ku ilaalinaya isla markaasna subaxii lacag ka goosana inteena badan Soomaalidan waxa sameynaa iska wada xirnaa qof walba muslim lacag soo dhow ribe inta badan ka noqonaysa iska xiraysa swapkaas oo kale iska xiraysa brokerka la hadle asaa ka xiray sidoo kale marka akoonada dadkan ka furna laba nooc loo furta waxa jira variable iyo waxa jira waxa la dhaho ECN iyo variable kan kala duwan yihiin brokerka marka adiga lacag ku soo tusaale kale hadii lacagtaada ay ka yartahay waxa loo yaqaan $500 hadii lacagtaada ay ka yartahay brokerka wuxuu ku siinaa account la dhaho variable ka waxa waaye brokerka kama qaadanayo commission ma ka qaadanayo waxa la dhaho lacag oo wax dhan oo ka qaadana mala wuxuu ku sameeynaa spread waxa la jiro oo ah spread ku furaa marka trade ka gashid tusaale kale trade meesha uu maray markaas marka galayso isla markaas xogaa biibyo oo gadaal ka dhiga biibkan waa arki doonaa noo soo socota iyo wax la dhaho iyo qaabka u shaqeeyo xogaa dib kaaga dhiga isla markaas abaar markaas u soo shaqeysid tusaale kale toban biib inuu gadaal ku dhigay isla markaas tobankaas biib markaas u soo shaqeysid commissionkii oo ka qaadan lahayd spread ahaan taasoo kaaga goosana waxaa loo yaqaanaa akoonkaas variable loo yaqaanaa dadka lacagtooda iska hooseyso inta badan isticmaalaan oo 500 ka yar
haddii lacagtaada 500 ay ka yartahay akoon waxaa jira la dhaho ECN. ECN-ka waxa waaye spreadkaas waa laga xiraa low waa almost spread wuu jiraa laakiin waa low ala geena. tusaale kale hadda FXTM-ka isticmaalo waxay kaa qaadaan 0.01 waa wax 10 cent ka yar, isla markaasna commission yaraa ku saaran halka trader furatid commission yar. tusaale kale lodka ku gelaysa mar walba lagu xadeeyaa barokada qaarna base u jiro oo u go'an, isla markaas halkaas waxay kaa qaadaan ilaa ma kun oo lod ku gasho. kuwana waxaa jiro lodka ay kugu xisaabinaa. FX Primes kale wuxuu sameeyaa tusaale kale haddii suuqa aad ku gasho 0.10 oo hal door u dhigmato wuxuu kaa goosanaa 0.10 kaas oo kaa goosanaa. haddii hal door ku gashidna 10 door kaa goosanaa, 10 door u dhigma halkii door. lodkii qaabka u shaqeeyaan waa fiirin doonaa. marka almost waxaa samaynaysaa haddii lacagtaada ay ka badan tahay 500 door akoonkaas wax kugu recommend gareynaa ECN-kina furtid asagoo spreadkiis ma yar yahay commission yar laga qaadanaa. tusaale kale suuq waxaa la soo gashay markaas lacagta aad ku gashay lodka waxaa la lacagta markaas aad suuqa ku gelaysa si aad suuqa ugu sii mid noqoto. taasoo kale haddii hal door kale ay ku tahay 10 door asiga wuxuu kaa qaadan halkaas dollar milyanka iyo halkaas door bas oo kaa rabaa ber trade. waa marka halkii trader furtid halkaas lacag kaa goosana. qaabkaas u shaqeeyaan waxyaabaha lagaaga baahan yahay suuqana waa kaasa smartphone-kaas inay haysid, internet-kaas inay haysatid, isla markaasna inaad suuqa qaabkaas ugu shaqeysatid. okay maxaa noo xigay? okay suuqan aan ka sheekeynayna caawa dhan la dhahayo forex yaa ka shaqeysto. okay suuqani waxaa ka shaqeysta dowladaha qaabkay u shaqeystaan. dowladaha lacagta aan ku trade gareynayno tusaale kale GBP aa maqlaysaa. GBP waa Great Britain pound. Great Britain pound iska leh dowladda Britain iska leh. dowladda Britain suuqa way ku jirtaa lacagteeda ayadaa xadeyso qaab meesha rabtay ka dhigtaa intay rabtay geysaa. dowladaha suuqan ka mid ah waxyaabaha dadka ka shaqeysta suuqan waxaa ka mid ah bangiyada ugu waaweyn ee adduunka. bangiyada waxay ka yihiin weliba primary section waxay ka yihiin suuqa. waxa kaliya lacagta dhaqaajiyo suuqa waa ayaga. haddii suuqa maalmo waxaa jira oo bangi hebel holiday aa maqli doontaa markaa suuqa kusoo dirtaan. bangiyada maalmaha suuqa holiday ku wada jiraan oo kale daraad waxaa jira wax loo ciid oo gaalada ay leeyihin Easter lo. bangiyada intooda badan holiday ay ku maqnaayeen. marka suuq maalinkaas oo kale dhaqaaq fiican ma laha. waxaa laga yaabaa inuu lacag shaqeynayo laakiin tacbaan uu yahay suuqa dhaqaaqayn maantoo dhan meel yar oo isaga la laabanaya. markii awal bangiyadaas ay shaqeyn lahaayeen almost dhaqaaq fiican suuqa ka fili lahayn. waxaa ka mid ah hay-adaha dhaqaalaha waa hay-ad walba oo financial institutions ka lahaa hay-adaha dhaqaalaha lacagtaas suuqan way ku jiraan. waxaa jira waxa loo hedgers waxa waaye dad trader ah oo waaweyn oo suuqan waxa waaye lacag fiican ka sameeya lacag fiican la soo gala halkii mar oo kale inay $10 million suuqa la soo galaan oo kale waaye. waa dadka ugu waaweyn ee suuqa ka shaqeysta. waxaa jira waxa loo retail traders waxa waaye waa adiga iyo aniga iyo dadkeena la midka ee lacag yar iska haysto waxaa loo yaqaan retail traders. intaano koox waxay ku jirtaa suuqa. dowladaha waa dadka kaliya suuqa go'aamiyo dhaqaalaha maadaama lacagta waddanka la isku sarifanayo. bangiyada waxa waaye primary section ka yihiin. hay'adaha dhaqaale hedgerskan waa niman brokero. hadda waxaa jiro nin haddaa maqasheen la dhaho Warren Buffett waa ninka kaliya ee suuqan maxaa leeyahay stock iyo forex-ka lacagta ugu badan ebid ka sameeyay waa nin billionaire ka noqday 8 million oo haysta 88 bilyan oo dollar oo suuqan ka sameeyay. marka waa suuqa kaliya asigoon qofna u shaqeysan waa investor oo waxa waaye lacag fiican suuqa ka sameeyay waa. okay suuqan qaabkee looga shaqeystaa marka? qaabka suuqan looga shaqeystaa waxay tahay 1 minute aan noo haro la socdayaa insha Allah oo ku soo laaban doonaa linkeyga. okay qaabkee looga shaqeystaa suuqan marka? qaabkan suuqa looga shaqeysto waxaa sariflayaasha oo adiga ka mid aniga ah waxa isku sariftaan laba lacagood qiimahooda maadaama aan dhahay suuqan digital waaye wax lacag oo lagu taabsiina adigana aad ka qaadanayso qof kale ma jirto. marka waxa kala bedelanaysaa waxay tahay waa digitalkaas. qofka codku furan yahay insha Allah muddo iska qaato. okay marka waxa suuqa marka laba lacagood qiimahooda tusaale kale labada lacagood waxa kala jeednaa euro lacagta euro iyo lacagta USD oo kale la isku bedelanaya. marka isku bedelanaysa ayadoo la isticmaalo waxa loo yaqaan sell ama buy. lacagtaas in la iibsado oo qiimaheeda oo hoos joogo ama lacagtaas kor inuu qiimaheeda joogo oo hoos la iskaga soo iibinayo buy iyo sell labada lacagood lagu kala sariftaa. waxyaaba inta badan aan maqli doontaan ama suuqan inta ku dhex jirta si fiican oo la macaamili doonto waxa loo yaqaan buy and sell. okay dadka suuqa ka shaqeysta waxay sameeyaan lacag markii ay qiimaheeda hooseyso way iibsadaan. tusaale kale lacagta qiimaheeda hoos ay joogtaa dadkaas way iibsanayaan.
markay lacagta qiimaheeda kor joogtana lacagta way iska iibinayaan qaabka looga shaqaysto waa kaasa suuqaana haddii aad rabtid inaad ka shaqaysatid weliga ha khilaafin meesha uu socdo haddii aad khilaaftid adiga la lacagtaada yar meesha goonaysa tusaale kale suuqa hadduu sokor u socdo aragtid dubai u socdo baygaaga u raaca suuqaas hoos soo socda haddii aragtid oo sel ah sel usoo raaca sel usoo raaca iyo bay usoo raaca qaabka u shaqeeyaan qaabka u raaci doontidna insha allah waxa waaye in this course ku qaadan doonaa maxaa noo xiga marka okay lacagaha ugu waaweyn ee suuqan ka shaqeysta most trade currency bills lacagaha ugu waaweyn ee suuqa go'aamiyo oo dhaqaajiyo waa kuwaana